bartamaha magaalada Antwerp ee Belgiumka magaalo ku caan baxday hodanimada iyo ka ganacsiga diamondka ayaa koox dhalinyaro ah waxay magacyadoodii kaga qoreen baal dahabi ah taariikhda wadankaasi kadib markii ay fuliyeen dhacii diamond ee ugu weynaa taariikhda dunida waliba si ay ku jirto xariiftinimo aan caadi ahayn waa dhacdo sheekadeedu ay aad u xiiso badan tahay maantayna aan rabo in aan kula wadaago ku soo dhawaada sheekada dhacdadii the biggest diamond heist in the world. Diamond Quarter waa goob lagu ganacsado diamondka oo ku fadhiisa qiyaas 2.6 kiiloomitir oo ku taal bartamaha magaalada Antwerp ee dalka Belgiumka. Waxa lagu qiyaasaa in ka badan 80% dhagaxyada diamondka ah ee caalamka lagu kala iibsado in mar ay halkaas soo mareen oo lagu iibiyay ama laga soo iibsaday. taa oo markaa ka dhigaysa mid ka mid ah goobaha ugu qanisan iyo suuqyada ugu waaweyn ee diamondka lagu iibiyo. Waxa ganacsigaasi oo dhan lafdhabar u ah dhisme ku yaal gudaha area-dan oo lagu magacaabo Antwerp Diamond Center. dhisme aad loo adkeeyay amnigiisa halka oo dadka ka ganacsada diamondka ay ku leeyihiin xafiisyo iyo meherado. Sidoo kale dhismahan waxa ku dhex yaala qasnad aad u casri ah halka oo ganacsatada diamondka ugu waaweyn ay ku keedsadaan diamondadooda, lacagtooda iyo dhagaxyada kale ee aadka u qaaliga ah ee ay iibiyaan. Waxyaabaha ku keedsan gudaha qasnadan ayaa qiimahoodu wuxuu gaarayaa boqolaal balaayiin oo dollar. Dhismaha Antwerp Diamond Center ayaa wuxuu u kala qaybsan yahay 3 qaybood: A block, B block iyo C block. laba dabaq dhulka hoostiisa oo ku aadan qaybta B block ayna ku taalaa qasnadan gudaheeda ay ku jirto boqolaalka balaayiin ee dollar. sida markaa la aaminsanaa qasnadan waxay ahayd mid aan marnaba la jabsan karin, mid ka mid ah qasnadaha ugu ilaalinta badan dunida haddii ayba ahayn midda ugu ilaalinta badan xilliga. Si aad fikrad uga hesho habka security-ga qasnadan uu gaarsiisnaa aan ku kala dhigdhigo. qasnadan waxay lahayd albaab aad u weyn oo qiyaas 3,000 oo kilogram culeys gaaraya leh, isaga oo kaliya ayaana lahaa 6 security system oo u baahan inaad ka soo gudubto si aad gudaha qasnadan u gasho. ugu horreyn si albaabkan loo furo wuxuu lahaa password lock oo u baahan in la geliyo 4 tiro kuwa oo mid kasta tiradoodu ay u dhaxayso eber ilaa iyo 99. taa oo micnaheedu ay tahay haddii aad tiraahdo waan qiyaasayaa oo marba tiro ayaan ku borobeenayaa waxay kugu qaadan kartaa 100 milyan oo jeer inaad isku daydo. waa 100 milyan oo jeer inaad isku daydo si aad u hesho passwordka saxda ah ee albaabkan lagu furo. sidoo kale markii aad midka ka soo gudubto waxa kale u baahanaysaa furo gaar ah oo albaabkan loo naqshadeeyay meel kale oo dunida aad ka helaysana uusan jirin. marka intaasi laga soo wada gudbo albaabkan waxa ku rakiban 2 saxan oo bir ah oo iyagu markii laga shaqaysiiyo dhalinaya magnetic field taa oo keenaysa in markii albaabkan la furo ay kala sigtaan misna isla markii ay kala sigtaanba waxay ka qeylisiinayaan seeriga ku yaala dhammaan xarunta. habka kaliya ee loogu hortagi karo in seerigaasi uusan dhawaaqin waa in aad geliso password code kahor inta aadan albaabka furin kadibna aad sida albaabka ku furto. waxa laga yaabaa in dad badan kamid ah ay isleeyihiin intii aad passwordkii iyo waxyaabihii kale isku dayi lahayd ma uun albaabka la jibiyo soo sidaa ma fududa. Allah haddii ay sidaa u fududaan laheeda waayo haddii uu qof isku dayo in albaabkan uu ku duleeliyo majiinada la isticmaalo si uu wax loogu duleeliyo waxay qaadanaysaa ku dhawaad 12 saacadood oo xiriir ah si albaabkaasi loo duleeliyo. intaaba intaan la isla gaarin waxa gudaha albaabkan lagu sameeyay qalab yar oo lagu magacaabo seismic sensor oo haddii albaabkan lagu taabto mashiinadaasi oo kale wax yar gariirna uu dareemo ka dhawaajinaysa dhammaan alarmiskii iyo seeriyaashii ku yaalay xaruntaasi. waxaana gudaha xaruntan iyo area-da ka ag dhow ku diyaarsanaa ciidamo gaar ah oo dawladda Belgiumka ay u tababartay oo kaliya ilaalada diamondkan oo lagu magacaabo Diamond Squad oo iyagu mar walba heegan u ah in ay ka hortagaan wax walba ku soo wajahan xaruntan. runta marka laga hadlo si haddaad u eegto waa run oo qasnadan waxay ahayd mid aan marnaba la dhici karin taa oo keenaysa markaa inaad is su'aasho yaa qaba waali xadkeeda dhaaftay oo xitaa ku fikiraya in uu qasnadan jabsado misna la baxo hantida ku jirta gudaheeda. waxaa jira hal nin Leonardo Notarbartolo oo isagu diyaar u ahaa in qof kasta oo dunidu ku nool uu cadeeyo in aysan jirin wax la yiraahdo ma aha mid la jabsan karo. kaartidii iyo balaankii uu dejiyayna ayaa noqotay wax lagu arko filmaanta isagoo ugu dambeyn ka dhabeyn doona misna fulin doona dhicii ugu weynaa ee qarniga.
Leonardo wuxuu ku dhashay sanadii 1952 magaalada Palermo gobolka Sicily dalka Talyaaniga. Yaraantii waxa lagu yaqaanaa in uu ahaa canug aad u dhib badan, sidoo kale dagaal badan. Waxa kaloo la sheegaa in wax dhicistana uu soo bilaabay asagoo aad u yar oo 6 jir ah. Leonardo marna ma joojin in uu wax dhaco, oo markii uu ka baxay iskuulkii waxbarashada waxa dhowr jeer la soo qabtay isagoo dad ka dhacaya lacag aad u badan. Wuxuu uga sheekeyn jiray in uu yahay nin iibiya gawaarida casriga ah, inta badan dabinkiisa ayuu ku dhici jireen oo lacago kumanaan dollar ah ayuu kala baxsan jiray isagoo wax gaari ah farta ka saareen. Dhowr jeer oo booliiskii Talyaaniga ay soo qabteen waxay uga shakisnaayeen in uu ka tirsan yahay maafiyada Sicily, mid ka mid ah maafiyada ugu waaweyn caalamka ilaa haddeerna leh awood aad u badan, balse isagu marna ma sheegan in uu ka mid yahay kooxdaasi. mararka qaarna wuu iska diidi jirayba. Sanado kadib Leonardo ayaa ugu dambeyn guursaday. markii uu sida u guursadayba asaga iyo xaaskiisii waxay furteen meherad lagu iibiyo mujawharaadka. meheradan ay furteen waxay noqotay mid aad u guuleysatay oo dakhli badan ay ka sameeyaan. Leonardo laftirkiisna wuxuu la soo baxay talentii aysan dadkii ku aqoon oo ah in uu naqshadeeyo mujawharaadka, haddii ay ahaan lahayd dahabka iyo dheemanada kale ee kala duwanba. Leonardo oo wax waliba ay isugu toosan yihiin ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday in mid ka mid ah meheradihiisii la dhaco. wax waliba oo qiimo lahaana waa laga qaatay, oo markii uu meeshii yimid wuxuu ugu imaaday dukaan asagoo dhan la xaalufiyay. dadka qaar ayaa waxay aaminsan yihiin in dhacdadan ay ahayd meeshii uu Leonardo kaga soo tagay noloshii nadiifta ahayd oo dib ugu soo laabtay wadadii uu weligiiba ku raaxaysan jiray oo ahayd in uu wax dhaco. si kastaba ha ahaato, sanadii 1997 Leonardo wuxuu la kulmay nin lagu magacaabo Ferdinando Finotto oo isagu laftirkii qabiir ku ah aadna ugu dheereeya dhicista bangiyada. Ferdinando ayaa maalinka wuxuu Leonardo la wadaagay inuu isku dayay inuu soo dhaco bangi ku yeelay magaalada Antwerp ee dalka Belgiumka si ay ku soo fashilmeen kadib markii mid ka mid ah raggii ay isla socdeen oo si kadis ah alarmigii ku xirnaa uga qeylisiyay. taana ay keentay in meeshii ay isaga soo xararaan koor inta uu booliiskii ku iman. waxyaabaha ay maalinka ka wada hadleen ma ahayn oo kaliya bangigii uu Ferdinando ku soo fashilmay, oo waxaa la sheegaa in Leonardo uu rabay inuu macluumaad ka ogaado xarunta ugu weyn ee diamondka lagu iibiyo, Antwerp World Diamond Center. maadaama Ferdinando uu qabiir ku ahaa howlahaasi waaweyn iyo magaalada Antwerp, wuxuu wax ka su'aalay haddii uu ka warhayo xaruntaasi iyo meelaha ay ka jilicsan tahay. Ferdinando wuxuu ka warhayay xadka ay la eg tahay security-ga xaruntaasi iyo goobaha ku hareeraysan. wuxuuna la socday in aysan ahayn meel aan caadi ahayn oo ay fududahay in la isku dayo. se wuxuu Leonardo la wadaagay xog uu meelaha ka soo maqlay oo ahayd in ay fududahay si xaruntaasi qofkii raba uga furan karo meherad ama xafiis. markiiba inta ay is eegeen ayay garteen in meeshaasi ay tahay halka ay ka liidato xaruntaasi. haddii ay rabaan in meeshaasi ay xog ka soo helaanna waxa furneed oo kaliya hal wado, in Leonardo uu isagu laftirkiisii ku biiro dadka xafiiska ku leh meheradaasi, maadaama uu yahay qof mujawharaadka ka ganacsada. midaana way fududeed. sanadii 2000 marka la gaaray, Leonardo ayaa ku dhaqaaqay qorshihii ugu horeeyay isagoo xafiis ka ijaartay dhismaha Antwerp Diamond Center. tani waxay ahayd talaabadii koobaad. markii uu gacantii ku dhigay furihii xafiiskana waxay talaabadii xigtay ay ahayd in uu noqdo qof meesha laga dhex yaqaano. dhammaan qof kasta oo ka shaqeeya meeshaasina uu ixtiraamo, bisna sidoo kale noqdo qof dadka ay aaminaan. wuxuu ahaa qof maskaxdiisu fadhiso oo caqli badan, khabiirna ku ah akhrinta dadka iyo dabcigooda, sidoo kale ay u fududahay si dadka looga faa'iideysto wuxuu rabo iyo sida uu rabana uga heli kara. xaruntan marka la joogo, ganacsiga diamondka waxa ku haysta qoysas ka soo jeeda Yahuud iyo India oo iyagu reerahoodu ay 100 sano ka hor ka soo ganacsan jireen mujawharaadka. inkastoo Leonardo isagu raggan kabahooda gashan karin oo dadka ugu waaweyn meesha ahayn, haddana inta uu xaruntaasi joogo wuxuu isku dayi jiray in uu iibsado mujawharaad badan, sidoo kalena uu ku iibsado lacag kaash ah oo wax deyn la yiraahdo iyo wax la mid ah uusan isku taaban jirin. isagu inta oo dhan wuxuu ka rabaa in dadku ay arkaan oo ay yiraahdaan ninkan looma gali karo, wixiisu waa hadda isi oo hadda qaado. xoogaa xushmad iyo magac ayuuna sidaa ku helay. maadaama isagu uu ka mid yahay dadka halkan ku leh xafiisyada kana ganacsado, Leonardo wuxuu isna si la mid ah dadkii meeshan joogay fursad u helay in uu qasnadii ku keedsado alaabtiisa oo qayb ka mid ah ayaa la siiyay. taa oo markaa micnaheedu tahay in xilligii uu rabo uu codsan karo in loo furo qasnadii.
misna uu gudaha u gali karo si alaabtiisa uu ugu soo xariisto. Sidaa darteed waxba waqti iskama lumin. Markiiba wuxuu bilaabay inuu si gaar ah ula socdo dhaqdhaqaaq kasta oo xarunta ka dhacaya, haddii ay ahaan lahayd meelaha ay ku yaalaan kaamirooyinka CCTV-ga, tirada ilaalada joogta xarunta, xilliyada ay ku badan yihiin iyo xilliyada ay joogaan wax yar, si guud qaabka ay u shaqeyso xarunta. Dhanka kale marka laga soo tago waxyaabaha ka dhacaya gudahan, Leonardo wuxuu ogaa in uusan shaqadan keligii qaban karin. Sidaa darteed wuxuu bilaabay in uu isku soo ururiyo rag qabiir ku ah wax kasta oo uu xulanayo. qofkii ugu horeeyay ee uu la xiriiro wuxuu ahaa Ferdinando Finonto, maadaama isagu uu la socday qorshihii. haddii Leonardo uu yahay maskaxda qorshahan kala wada, Ferdinandona wuxuu ahaa muruqa kooxdan. waxa markiiba la siiyay naaneysta The Monster. The Monster wuxuu ahaa nin dhan kasta ku fiican, howlahan oo kalena waaba howlihiisa. haddii ay ahaan lahayd sida qoflada loo jabiyo ama sistemyada kale ee passwordka, haddii loo baahdo qof wada gaari marka laga baxsanayo booliiska, The Monster isagu waxba lama ahayn intaasoo dhan, oo xariif ayuu ku ahaa. qofkii labaad ee kooxda ku soo biiray wuxuu ahaa The Genius, caaqilka ama garaad, oo isagu doorkiisu ahaa hackerka ku takhasusay jabinta sistemyada ilaalada. haddii ay ahaan lahaayeen kaamirooyinka ama waxa ugu muhiimsan ee markaa ayagu hortooda yaalay oo ahaa alarmiska iyo seeriyaasha ku xiran goobtan. qofka saddexaadna wuxuu ahaa King of Keys, boqorka furayaasha, qabiir ku takhasusay jabinta qufulada iyo meel kasta oo furo ku xiran. ugu dambeyn waxaa gruubka lagu soo daray saaxiibkii caruurnimada ee Leonardo, Speedy, nin ku xeel dheereeya gaari wadista misna gacan fudud. sida la sheego, raggii tiimkan ku jiray kuma qanacsaneen in Speedy lagu soo daro kooxda, maadaama lagu tilmaamo in uu ahaa qof walwal badan misna mararka qaar faraha ka baxaya oo aan la celin karin waxyaabaha uu sameynayo. wuxuu 30 sano saaxiib la ahaa Leonardo, mana ahayn qof uu Leonardo ka saari karo kooxda. sidii ayna isaga qaateen. maadaama qof kasta oo loo baahnaa uu tiimka ka kooban yahay, waxaa haddeer si buuxda loo bilaabay howlgalkii. Leonardo wuxuu si qoto dheer u sii dhexgalay xaruntii. fursad kasta oo uu heli karana wuxuu kaga faa'iideysanayay si uu macluumaad dheeri ah uga heli lahaa habka ay u kala socoto shaqada dhismaha. indhihiisa oo keliya kuma ekaan, ee wuxuu bilaabay inuu isticmaalo kaamiro uu ku qarsoon qalin uu sitay iyo boorso yar oo uu ku xaragoon jiray si uu u duubo wax kasta, qaas ahaan marka uu gudaha u galayo qasnada. taa oo u suurgelisay in xog kasta oo qasnadan ka mid ah ay helaan, iyagoo ugu dambeyn samaystay qasnad la mid ah qasnadii diamondka lagu xareynayay. inkastoon la aqoonin meesha ay ku qariyeen qasnadaasi macmalka ah, se waxay u badan tahay in ay ugu xareysneed garaash ku yaala banaanka magaalada Palermo. markii ay samaysteen oo ay u dhamaatayna waxay bilaabeen in ay ku baratikeeyaan wax waliba oo ay uga baahnaayeen in ay ku sameeyaan qasnadii diamondka, haddii ay ahaale sida loo jabin lahaa iyo waxyaabaha la midka ah, maadaama muhiimadda loo dhisayba ay sidaa ahayd, ilaa heer ay gaareen in muddo yar ay ku jabin karaan qasnada. dhanka kale waxay ogaayeen security camera kasta oo xaruntaasi ku taala meesha ay ku dhagan tahay iyo baaxadda ay duubto inta ay la eg tahay. sidoo kale waxay ogaayeen halka ay ku jiraan qalabyada kale ee ka dhawaajiya seeriga, waxayna u diyaar garoobeen qaab kasta oo ay ku damin lahaayeen qalabyadaasi. ma jirin qalad yar oo ka dhici kara, wax walibana waa inay ahaadaan perfect oo sidii loo qorsheeyay ay u dhacaan. waxaa la sii marayaa ku dhawaad 2 sano. taariikhdu waxay ku beegan tahay bishii September ee 2002. markan waxa kaliya ee u haray waa hal arin oo kaliya, in ay helaan qaabka ay ku ogaan karaan ama ay ku jabin karaan password loggii u baahnaa in la geliyo 4 tiro, kuwa oo mid kasta tiradoodu ay u dhaxaysay 0 ilaa 99. ma ahayn shay laakiin gareyn karay oo digital ah. sidoo kale haddii ay isku dayaan in markii ay halkaa tagaan ay mid ugu baroobeeyaan, ma ahayn mid macquul gal ah oo 100 milyan password kala duwan mid ka mid ayuu noqon karay. intaana waqti looma haynin oo wuxuu qorshuhu ahaa in waqti yar ay ku kala dhameeyaan hawshan. Leonardo ugu horeyntii wuxuu islahaa markii aad qasnada galayso isku day inaad eegto password kala gelinayo, balse sida uu filanayay ma noqon arinka, oo isaga oo aan u soo dhawaanin meel fogna ka taagan ayuu qasnadahayay furaa albaabka. sidaa darteed waxaa loo baahnaa qorshe kale. The Genius ayaana la yimid qorshahaasi. The Genius wuxuu sameeyay kaamira aad u yar misna ay adag tahay in la arko, taasoo muuqaalka ay duubto si otomaatig ah ugu diraysa box yar oo isna markii dambe ay meel uga qariyeen dhismahaasi. wuxuu qorshuhu ahaa in kaamiradan lagu xiro qasnada korkeeda. waxay rabeen in ay duubaan 4 nambar ee uu qasnadahayay gelinayo. dadka qaar waxay aaminsan yihiin in Leonardo uu kaamiradaasi ku rakibay meeshii la rabay, halka inta badanna la aaminsan yahay in The Genius liftirkii uu yimid xaruntii isagoo isticmaalaya ID kaarkii Leonardo misna uu isagu ku xiray.
المهم maalinkii xigay abaaro 7 subaxnimo qasnadhayihii ayaa yimid qasnadii isagoo sida caadada ahaydba bilaabay in uu geliyo passwordkii markii uu albaabkii furayna waxa isla markiiba The Genius u soo dhacay muuqaalkii ay duubtay kaamirada uu sameeyay waxay ahayd mid ay iyagu laftirkoodii rumaysan waayeen iyo sida ay u fududayd misna aan loo ogaan waxay hadeer gacanta ku hayaan nambarkii la rabay in albaabkaasi lagu furo wax kale oo u harayna ma jirin oo aan ka ahayn in ay hantidii kala soo baxaan oo ay u dhacaan qasnadii qorshahan wuxuu qaatay in ka badan 3 sano waxa kaliya ee markan u dhinnaa ayaa ahayd in ay qorsheeyaan maalinkii ay u dhici lahaayeen xaruntii ugu weyneed ee lagu iibinayay diamondka dunida xilliga laakiin waa in maalinkaasi ay noqotaa maalin perfect ah oo wax waliba ay isku toosan yihiin si ay u yareeyaan jaanis kasta oo lagu ogaan karo ama lagu soo qaban karo waxay sugaanba fursadii ugu habooneed ayaa timid maalinka ay taariikhda ku beegneed 15 February 2003 kuna beegan maalin sabti ah ay u arkeen in ay tahay fursadii ugu qaalisaneed iyo maalinkii ugu haboonaa ay qasnadaasi dhici karaan ugu horeen waa maalin sabti ah oo yahuudi ka shaqeynaya xarunta ay leeyihiin fasax shaqaalaha ugu badanna ay ayaga ahaayeen inkastoo dhammaantoodu ay fasaxneen haddana intooda badan maalinka way iska nastaan si guudna wadanka intiisii kale waxa aad loogu mashquulsanaa tartanka tenniska oo sanadka socday waxaana aad meel kasta uga shidnaa ciyaaraha tartankaasi iyagoo reer Belgium ay taageero weyn u muujinayeen gabadha matalaysa dalkooda ee Kim Clacheris maalin ka hor maalinkii qorshuhu ahaa in la fuliyo missionkan Leonardo ayaa markii ugu dambeysay tagay xaruntii si uu u soo indheeyo haddii uu jiro wax isbedelay wuxuu kaloo lahaa qorsho midda ka muhiimsan wuxuu jaabka jaakadiisii ku sitay xaagad ku jirta hairspray product iska timaha loo isticmaalo markii uu gudaha u galay qasnadii isaga oo uu helinayo ilaaliyihii ayuu hal mar si kadis ah isagoo aan la dareemeynin wuxuu bilaabay in hairspraygii uu ku buufiyo sensorkii duubayay dhaqdhaqaaqa ka dhexdhacaya qasnada waxay ahayd kaarta fudud balse 100% shaqeeday oo qalabkaasi ka hor istaagtay in uu duubo dhaqdhaqaaqa dadka meesha ku jira ugu dambeyn waxa la gaaray maalinkii dhaca waxayna soo kireysteen gaari noociisu yahay baakeet qalin ah marka la gaaray saqbarkii habeenimo ayay kooxdii waxay gaarigii kaga soo degteen afaafta hore ee area Diamond Quarter iyagoo markiiba gudaha u jabsaday dabaqa xafiisyo ah oo meesha ku yeelay si ay isagu ugu dhex dhuuntaan maadaama wadooyinka aysan mari karin oo boqolaal askari ay joogto waxay dhismaha kale kaga gudbaan ugu dambeyn waxay tageen dhismihii dhabarka ku hayay Diamond Center qaybtan ilaalo badan ma joogin oo inta badan waxa ku xirnaa qalabyo duuba dhaqdhaqaaqa iyo waxyaabaha la midka ah oo cabsi badan lagama qabin waxayna ahayd wadada ugu fudud ee ay raggan si dhaqsi ah ugu tagi karaan qasnada iyagoon carqalad badan aan wajahin waxayna sidii gudaha ugu galeen dhismihii maadaama afarta dhinac ee dhismahan oo dhan u xirnaa ma jirin ilaalo heegan ku dhex ah gudaha dhismaha habeenkan waxa gudaha dhismaha ku sugnaa 2 ilaalo oo kaliya iyaguna waxay isaga nasanayeen qolalkooda jiifka inta badan xaalka sida ayuu ahaa maadaama ay ka warhaayaan qof aan iyaga ahayn in uusan soo gali karinba taa oo fursad aad u wacaan siisay Leonardo iyo kooxdiisa oo waxay ahaayeen keligooda markan waa in iska ilaaliyaan uun wax shaki gelin kara ilaalada taa oo ka soo bixin karta qolalkooda waxay tartiib dhismihii ugu dhex dhuuntaanba kadib markii ay tageen goobtii ay ku tiilay qasnadii waxay bilaabeen hooshooda iyagoo ku horeenaya kaamirooyinkii CCTV-ga oo mid kasta ay ku dabooleen bac madow ah kadibna waxay jabiyeen qol yar oo inta badan Leonardo uu arki jiray qasnad ilaaliyihii oo ka soo baxaya ka hor inta uusan albaabkii furin nasiib wanaag meeshan waxa bayeelay furihii dheeraa ee loogu talagalay in lagu furo qasnada inta waxa xigtay in security systemkii ay mid uga gudbaan mana ahayn wax sida ay ugu dhibtoodeen maadaama ku dhawaad 2 sano ay soo baraatikeynayeen dhowr daqiiqo kadib albaabkii qasnada ayay kala fureen balse sheekadu halka kuma dhamaan gudaha qasnadan waxay ugu tageen boqolaal sanduuqyo waa sanduuqyada ay raggii Diamondka ka ganacsanayay ku xariisanayeen alaabtooda qof kasta wuxuu lahaa mid u gaar ah iyo furo u gaar ah oo mid shabaha uusan jirin markiiba King of the Keys isagu wuxuu la soo baxay qalab yar oo ugu talagalay in uu sanduuqyadan ku jibiyo markiina wuxuu bilaabay in uu jibiyo sanduuqyadii sidoo kale waxa jiray qof labaad oo isagu markii sanduuqyada la jibiyo ka soo bixinayay alaab kasta oo ku jirta kadibna floorkii qolkaasi ku soo faarujinayay halka qof saddexaadna uu alaabtii kala saarayay oo mujaharaadkii kuwooda ugu qiimaha badanna ku qubayay boorsadihii ay wateen waxayna u badan tahay in qofkan uu ahaa Leonardo maadaama isagu mujaharaadka u lahaa aqoon badan dhowr saacadood kadib waxay qasnadii kala soo baxeen mujaharaadyo aad u qiimo badan
kahor intaanay dhismihii ka soo bixin waxay dib ugu soo laabteen qolkii lagala socday kaamirooyinka inkastoo ay horay u dabooleen kaamirooyinkii haddana waxay rabeen inay iska hubiyaan in qofna uusan ogaan karin waxa dhacay waxayna sidii kula soo baxeen cajaladii kaamirada ay ka duubtay habeenka ugu dambeynna sidii ay uga soo tageen dhismihii iyagoon wax qalad ah samaynin waxna darawalkoodii Speedy ay kula kulmeen goobtii lagu wada balamay sidii ayna goobtii kaga soo wada baxeen dhamaantooda iyagoo soo wada aaday apartmentigii uu Leonardo ka tagnaa magaalada Antwerp halka oo dhamaantoodii ay ku dharbadashteen sidoo kalena ku cunteeyeen kadibna waxay isku kala saareen koox si markaa ay wadankan uga baxaan inta aan la ogaanin ka hor Leonardo iyo Speedy ayaa iyagu raacay gaari gooni ah waxay sideen waraaqooyin dhowr ah cajaladii ay kala soo bixeen kaamirada dhismaha iyo waxyaabo kale oo ay isticmaaleen intii ay joogeen apartmentigiisa wuxuuna qorshuhu ahaa in markii ay tagaan wadankooda Italy ay ka taqalusaan oo ay gubaan dhanka iyo dhismihii Diamond Center wixii halkan ka dhacay ma jirin cid ogaatay ilaa hal maalin kadib subaxnimadii Isniinta 17 February qasnad ilaaliyihii oo isagu sida caadada ahayd baa Isniintii u soo shaqo tagay ayaa markii uu yimid wuxuu ka war helay muuqaal ay indhihiisu rumaysan waayeen in ka badan 100 sanduuq oo kamid ah 189 sanduuq ee qasnadan ku dhaxyeelay oo iyagoo dhan la wada jabsaday isla markiiba wuxuu wargeliyay ilaaladii Diamondka iyo rag ka socda xarumaha dambi baaris ee wadanka Belgiumka uu lahaa waxa meeshan ka dhacay qof kasta maskaxdiisu way qaadan weyday ragii dambi baarista ee halkan joogay isla markiiba waxay garteen in dadkii halkan dhacay ay yihiin rag qidad aan caadi ahayn ku socday balse wuxuu garan waayay sida ay ugu suur gashay in raggan ay kaga soo gudbaan albaabka qasnada marka la eego iyagu ma isticmaalin wax awooda inta badan tuugada dhaca xarumahan oo kale waxay adeegsadaan waxyaalo qarxa ama wax kale oo si awood leh u kala jibinaya albaabka balse markan xaalku sidaa ma ahayn raggan albaabka in ay si tartiib ah isaga soo fureen ay qasnadii gudaha u galeen wixii ay rabeenna kala soo baxeen dambibaarayaashu meel ay wax ka bilaabaan ayay garan waayeen waxaana sheekadii isugu soo biishubatay in ay qiimeeyaan qasaaraha meeshan ka dhacay iyo hantida maqan xaddiga ay la eg tahay Leonardo iyo kooxdiisu waxay halkaasi kala soo baxeen lacag aad u tiro badan dhagaxaan naadir ah oo qiimahoodu aad u sareeyo qiyaas $100 milyan oo diamond ah taa oo ka dhigaysa dhici diamond ee ugu weynaa ee taariikhda la geysto dadka qaar oo xaruntaasi ka howlgalayay xilliga ayaa ku tilmaamay in xitaa qiimaha waxyaabihii la dhacay ay intaa ka badan yihiin oo ay ku dhowdahay 400 milyan balse raggii meesha ugu weynaa ay qariyeen si aysan u ceeboobin oo aysan ganacsiga uga bixin si kastaba ha ahaatee hanti aad u badan ayaa lagu waayay meesha dhanka kale qoladii dambe baariyaashu waxaa luqunta ugu jiray hal xiraale aan caadi ahayn ma ahan mid laga dhageysanayo in ay yiraahdaan wax cadeen ah ma hayno cidii meeshan sidan yeeshayna ma garanayno waxay ku qasbanaadeen in meel ay wax ka bilaabaan wax uuna ay farta ku fiiqaan raggii ugu horeeyay ee lagu tuhmo dhacdadan waxay ahaayeen raggii ilaalada ahaa ee degnaa gudaha dhismaha as ahaan qasnad hayihii si marka loo eego asaga baa ahaa qofka kaliya ee ogaan kara in xaruntan ay firaaqo tahay maalmaha isbuuca fasax leeyahay iyo sidoo kale baaswarkii lagu furi lahaa qasnada waxa kaloo shaki aad u weyn sii dhaliyay in markii wax laga weydiiyay habeenkaasi wuxuu sameynayay uu ku jawaabay in qaybtii uu degnaa uu ku soo booqday walaalkiisa la dhashay habeenkiina ay isla caweeyeen ilaa xilli dambe ay ka sixdeen ka hor inta aan ninkan sheekadiisii loo kuurgalin waxa qoladay dambi baarista soo gaaray macluumaad aad u muhiim ah misna ka shifi doona dhammaan wixii habeenka ka dhacay halkaasi oday waayeel ah oo lagu magacaabo August van Camp oo sida caadada ahayd baa subax kamid ah subaxyada iska dhex lugeynaya meel xogaa Kenyar ah jawi bedelashana isaga jira ayaa wuxuu arkay qashin lagu soo farjiyay Kentan aad buuna u yara carooday maadaama meeshan aan loo ogoleen in wax qashin ah lagu soo farjiyo oo ay tahay meel iska jawi bedelasho loogu abuuray doogan isla markiiba wuxuu la xiriiray qoladii booliiska isagoo u sheegaya in qof edab daran uu keentii yareed ku soo farjiyay qashin markii hore booliisku hadalkiisa si fiican uma dhageysan oo inta badan way ku yaqiineen ninkan haddii wax qaldan uu arko haba yaraadaane sida qof meel qaldan ku baakin gareeyay gaarigiisa oo kale ama wax la mid ah wuxuu la soo xiriiri jiray booliiska balse isla markii uu bilaabay in uu tilmaamo qashinka uu arkay booliisku indhaha ay kala taageen wuxuu sheegay in uu arko cajaladaha kaaseedka oo si xun meesha loogu furfuray iyo sidoo kale waraaqyado ay ku qoran tahay Antwerp Diamond Center UID card isla markiiba qoladii dambi baarista ayaa yimi goobtii waxayna meeshii ugu yimaadeen cadeemo u furi doona albaab hor leh meeshan waxay ka heleen cajaladii ay Leonardo iyo asxaabtiisii ka soo saareen qolkii kaamirada laga maamulayay sidoo kale ID cardka qof rag ah oo magaciisa lagu magacaabo Elio Denorio iyo dhagaxaan diamond oo aad u yaryar oo bacdi ku jira waa isla alaabtii ay sideen Leonardo iyo Speedy oo si xun gacantoodii uga baxay kadib
markii ay kasoo tageen apartmentiga saa hore u soo sheegnayba Speedy wuxuu ahaa qof aad u fudfudud sidoo kale walwal badan oo aan iscelin karin Leonardo wixii uu ka baqayay ayaana dhacay habeenkaasi markii ay is soo raaceen oo ay dhex marayaan ayaa Speedy wuxuu bilaabay inuu aad u walwalo isagoo dhowr jeer ku soo celcelinaya alaabtan aan iska tuurno inta booliisku aysan istaajin ama xuduud aan nagula baarin Leonardo oo dhowr jeer aad ula dooday Speedy ayaa ugu dambeyn go'aansaday in alaabtan uu iska xaliyo haddii kale markii xuduud la gaaro uu Speedy baxar gelin doono waxay istaageen meel yara keen ah Leonardo ayaana ku yiri Speedy igu sug halkan waxaan soo eegayaa meel fiican oo aan ku gubi karno waraaqadahan si markii uu dib ugu soo laabtay wuxuu ugu yimid wixii ugu xumaa ee uu ku fikiri karay Speedy oo inta uu bridge-kii dul istaagay alaabtii mid u kala farjinaya Leonardo wuxuu garan waayay meel uu wax ka bilaabo wadada kaliya ee u furneyd waxay ahayd in si dhaqsi ah ay meeshan isaga baxsadaan ka hor inta aan la arkin wuxuu islahaa meeshan waa meel iska keen ah oo cid arki doontaa ma jirto sidii ayna kaga soo tageen balse sidaa ma dhicin oo qoladii booliisku gacanta ayay ku dhigeen waxayna la aadeen xaruntii dambi baarista iyagoo bilaabay in ay mid u baaraan ugu horeen ID-kaarkii ay meesha ka heleen ee uu lahaa qofkii lagu magacaabayay Elio Denorio wuxuu noqday qof ka tirsan kooxda The Genius sidoo kale markii ay dib isugu soo dhajiyeen waraaqadihii la jarjaray waxa u soo baxday inay tahay waraaqada company xafiis ku leh dhismaha Diamond Center markii ay dib u raaceen qofkii lahaana wuxuu noqday Leonardo laftirkiisa sidoo kale waxyaabihii ay meesha ka soo qaadeen waxa ka mid ahaa sandwich iyo dhalo qamri ah oo markii ay dib u raaceen meeshii laga soo gaday ay ka arkeen kaamirada store-kii laga soo iibsaday The Monster ama Ferdinando oo alaabtan soo iibsanaya waxayna ku sii xaqiijiyeen kadib markii DNA-giisa laga helay sandwich-kii iyo dhaladii qamriga ahayd markii ay macluumaadka heleen waxay bilaabeen ugaarsiga raggan xilliga dawladda Belgiumku awood uma lahayn in raggan ay soo qabato waayo iyaga iyo dawladda Italy xiriir amni kama dhaxaynin balse wax waliba ayaga ayaa isfurfuri doona Leonardo oo isagu ka warhayn in xogtoodii la helay misna aaminsan wali maaskigii aad xirneed ee ahaa nin ganacsada ah ku dhaqan oo laga shakin maadaama muddo isbuuca uu ka maqnaa xaruntii Antwerp Diamond Center misna uu islahaa haddii aad sii maqnaato qoladii booliisku way ku soo ogaanayaan ayaa damcay in uu yimaado xaruntii si wajigiisii uu u tuso dadkii meesha joogay maalin kadibna uu dib ugu soo laabto dalka Talyaaniga sidoo kale wuxuu horay u soo kaxaystay raggii la shaqeynayay iyo xaaskiisa oo iyagana uu rabay in apartmentigii uu degnaa ay dhammaan wax kasto cadeen ah ka soo faarujiyaan sanasib daro tani waxay ahayd go'aankii ugu xumaa ee uu qaatay kadib markii Leonardo uu xaruntii yimi waxa isla markiiba indhaha saartay gabar ka mid ah gabdhihii ilaalada oo iyadu ka warhaysay in ninkan ay raadinayaan booliiska markiiba inta ay u timid ay bilowday in ay mashquuliso xogaha waraysi iyo sheeko beenbeen ah ayna u gashay halka saaxiibadeedna ay la xiriireysay qoladii booliiska oo iyagu daqiiqado yar ku yimid xaruntii sidiina gacanta ugu dhigay Leonardo inkastoo markaasi cadeemo cad aysan booliisku ku hayn Leonardo laftirkiisa marka laga reebo waraaqadihii ay keenta ka soo heleen haddana waxay boqolkiiba boqol ogaayeen in uu ninkan lug weyn ku leeyahay saadarteed waxay bilaabeen in ay waraysi ka qaadaan Leonardo marna cabsi kama muuqan intii dambi baaristu la waday wuxuuna si cad isaga diiday inuu isaga jabsaday qasnadii Antwerp Diamond Center dabcan booliisku kama aqrisan arinta waxayna isku dayeen in ay heshiisi u soo bandhigaan sida in muddada xabsiga laga yareenayo haddii uu sheego raggii kula jiray iyo sida ay ku fuliyeen dhacan balse isagu marna afka kalama qaadin intaas waxa u sii raacday ka hor inta aanay asxaabtiisii tagin apartmentigiisana waxa uga hormaray qoladii booliiska oo iyagu mar kale meeshii ka soo helay cadeemo dheeri ah sida simkaar uu lahaa Pietro Tavano ama Speedy si marka loo eego dembiga raggan ay galeen wuxuu ahaa mid aan innaba caadi ahayn oo keeni kara in noloshooda oo dhan ay xabsi ku qaataan balse xaalku sidaa ma ahayn gudaha dalka Belgiumka shuruucda xabsi waa kuwa aad u yaab badan la isku ciqaabo xaddiga dembiga aad gashay ee waxa la eegaa nooca dembiga aad gashay tusaale maadaama nooca dembigan uu yahay dhac haddii aad gaari xado iyo si la mid ah raggan oo kale haddii aad 100 milyan oo dollar xado waa isku mid waxaana ciqaabta ugu badan ay tahay 5 sano oo xabsi ah waxa xaqiiq hadalka adiga maqashay 100 milyan qof xaday iyo mid gaari xaday inta ugu badan ee lagu xukumi karay xilliga waa 5 sano oo kaliya adigu ugu dambeyntii wixii dambi baaris iyo muddo maxkamadeed dheer ay qaadato 3 March 2005 Leonardo waxa lagu xukumay 10 sano oo xabsi ah isagu muddadiisu waa loo laba jibaaray maadaama la aaminsanaa in uu ahaa maskaxda waxaan oo dhan kala waday sidoo kale ugu dambeyn muddo Elio Denorio ama The Genius isna waxa lagu soo dhigay gacanta asna waxa lagu xukumay 5 sano oo xariga si la mid ah The Monster Ferdinando isna waxa markii dambe la soo qabtay isagoo gabar saaxiibadiisa la jooga jasiirad ku taal dalka Faransa asna waxa lagu
xukumay muddo 5 sano xariga. ugu dambeyn Speedy isna waxa lagu xiray xabsi ku yaal dalka Talyaaniga muddo 5 sano. qofka kaliya ee aan xogtiisa la helin gacantana aan lagu soo dhigin wuxuu ahaa King of the Keys. si kasta oo raggan wax looga weydiiyo qofka uu yahay ninkaasi marna afkoodii u kala ma furin. muddo kadib markii uu xabsiga ku jiray Leonardo ayaa afkiisii kala furay isagoo u ogolaaday in uu wareysi siiyo wariye lagu magacaabo Joshua Davis. wareysi uu ku sharaxayo wax waliba oo ku saabsan gicii ay geysteen. wuxuu wareysigii ku sheegay in marna uusan isaga ahayn qofkii kala waday mishinkan. wuxuu sheegay in fikirkan uu ula yimid qof uu ku dhex arkay xaruntan Antwerp Diamond Center misna uu isagu ahaa qofkii dejinayay qidadan oo dhan. inkastoo magaca qofkaasi uusan sheegin wuxuu sheegay inuu heshiis kula galay ninka inuu qayb ka leeyahay hantida meeshan ay ka dhacaan balse sida uu filanayay ay noqon kadib markii ay qasnadii tageen. wuxuu sheegay in habeenkii ay meesha kala soo baxeen oo kaliya alaab qiimaheedu ay dhan tahay $200,000 si aysan ahayn sida la sheegayo ee ah $100 milyan. wuxuu kaloo tilmaamay in isagay la qiyaamay oo ninkii fikradan ula yimid uu watay qorshe ka weyn midkii ay fuliyeen maadaama markii ay qasnadii galeen ay ugu tageen alaabtii iyo daymanadii badinkooda oo la baxsaday oo wax yar un ay ku keedsan yihiin sanduuqyadii. wuxuu aaminsanaa in ninkii ula yimid fikradan uu markiiba araggii asxaabtiisa u sheegay in meesha la dhici rabo hantidooduna ay kala baxeen kadib markii meeshii la dhacayna ay sheegteen in hantida ka maqan ay tahay $100 milyan si ay ugu macaashaan shirkadaha caymiska ah ee ay heshiiska kula jiraan kadibna hantidoodii loo soo kabo iyagoo tooda saxda ahna haysta. runta marka laga hadlo sheekadiisu waxay u muuqatay mid isku toosan balse waan isla ognahay dad badan kama dhaadhicin. waxaana la aaminsanaa in kaliya uu rabay sidii looga yareyn lahaa muddada xabsiga hadhowna noloshiisa caadiga ah uu uga soo laaban lahaa. wayna dhacday midda oo Leonardo waxaa xabsigii laga soo fasaxay sanadii 2009 4 sano uun kadib markii la xiray balse waxaa sharad looga dhigay in lacag magdhow bille ah uu bixiyo taa oo ugu dambeyn muddo yar kadib uu joojiyay bixinteeda taasoo keentay in dib loo soo xiro dhowrka sane u dhinaana uu sidaa ku dhameysto. maanta la joogana dhammaan raggii dhacaasi geystay waa rag xur ah oo xabsiga laga sii wada daayay. sheekada qisadoodna waa mid aan innaba caadi ahayn oo xitaa filmaan badan ay fikrado ka qaateen dadka qaarna ayba yiraahdaan ayaga tooda ayaaba ka fiican filimo aad u badan.